waxaan u fadhinaa in aan kaga hadalno berbera oo laga dhigayo saldhig imaaraadka carabta ah ummadda Soomaalilandna way ka soo horjeedaa arrintaas in waxoogaa maamulka aba arrintaasi wata dadweynaha Soomaaliland ma ogola gooni ula orodka laga daayo saldhigga iyo militarigu wuxuu leeyahay dhibaatooyin badan ayuu leeyahay oo hadhow laga soo kaba karin oo lagu calaacali doono dariisyadeena laftoodu sida ay raali ka yihiin lafteeda aan la soconno waxaan arrinta laga baaraadago berbera oo markii hore marmo badani ka joogay ayaa waxa ku biiray baa la leeyahay in la bixiyay saldhig military sida darteed saldhigga militarina wax dhib yar ma waxaanu halqab ku baaqaynaa in la joojiyo oo dawladdu dadka ay u taliso mujtamaca inay raacdo waxa ay ogol yihiin suurtagal ma laga daayo dadka iyo dalka waxaan cidnaba u danaynayn hal laga daayo baan leenahay kacdoonadii hore ee looga ee xukuumadda imika u talinaya qudhooda ay ka kaceen waxa kamid ahaa rabitaankii shacabka oo la tixgelin waayay wixii xukuumadda aad ka kacday xukuumadda Soomaaliland ku dhalatay waxay ahayd rabitaankii shacabka oo xukunkii militariga haadiiday Soomaaliland wixii aad ka baxdeen warde haddaad shacabka wixii ku samaysaan oo caburisaan de shacabku miyaanu dhiidhiyaynin anigu waxay la tahay in rabitaanka shacabka la tixgeliyo saldhigga waxa inoo keenayaa cadaawad buu inoo abuurayaa cadaawad weyn buu abuurayaa oo jaararka abuurayaa dadkeenuna iskuma saacsan waa ka aragaysa ummadii Soomaaliland way ka horjeedaa maamulka waxaan leenahay arinta dib ha uga noqotaa ka fariisada oran maayaan dib ha uga noqotaa abaaraha ka shaqeyso saldhigga berbera laga bixinayo ee imaaraadka la siinayo dhibaatada uu u leeyahay Soomaaliland iyo cadaawadda uu gelinayo waa la iska garanayaa Soomaalidu waxa jiraada niman waalayni waaga barigiisa uu yaqaana jaarkeena waa lagu culoobayaa siiba waxaan maqlay wasiir leh waan iska celinaynaa xuutiyiinta oo waanu la dagaalamaynaa waa dagaal bay markaas sidibay afuufayaan in Soomaaliland lagu dagaalamo lagu hirdamo waxaan leeyahay Sanca ama Yaman gantaalaha laga soo tuuray haamaha shidaalka oo dhan way burburinayaan dekada way burburinayaan war hal laga daayo dalka iyo dadka dhibaatada iyo siirigan ay afuufayaan wasiiradu waxaad moodaa inay wasiiradani meel kale ka soo yimaadeen dalka iyo dadka ayna u tureenin war loo turo war saldhigaasi hadduu baxo oo la ogolaado haddii hilib dad lagu qalayo ma gali karo madaxweyne janan ma gali karo madaxweyne ku xigeen ma gali karo hal laga daayo halka waxa loogu tala gashan yahay macdanta meesha taale ee la og yahay in la daad gureeyo oo la raro oo wax laga soo dajinayo wax la qaadayba aan la ogaanin taasi bay ku salaysan tahay waxaan leenahay war dalka loo turo wasiirada waxaan leenahay dalka u tura baarlamaanka iyo golaha guurtida alla ka baqa ilaahay ka baqa kitaabkii aad ku dhaarateen ka baqa waxayna rogayba waa kitaabkii inta lagu dhaartay haddana cilmaanigii dusha laga saaray ee laynagu xukumayo war ilaahay laga baqo oo la toobad keeno abaarahana ilaahay naga jabiyo saldhigga berbera reer berberana dhibaato u leeyahay Soomaaliland oo dhan buu dhibaato u leeyahay haamaha oo ay qarxin xuutiyiintu dekada way burburinayaan waxaan leeyahay hal laga noqdo kullay wala macneeyay waxa halkan loo yimid maanta waynu wada ognahay in dalkeennan Soomaaliland la yiraahdo qoonsi haysan dawladda qoonsi la bixisay saldhigyo iyo dawladda heshiis la gashay intaad ku mashquulaysaan saldhigaad bixisaan qoonsigii raadiyo wadadii loo mari lahaa dib ugu noqda inaynan tamar ahaan ciidan u dhisnayn baad ogtihiin
intaa waxay dheeroon anu ku dari lahaanoo la qabo walaalahay waxay ku hadleen nimanka xukuumadda markay hadlayaan waddanka waa la wada leeyahay bari ilaa galbeed waxaan moodaa inay u hadlaan sidii hablihii markaan ciyaari jiray abaatuutiduyaday waynaga mar walba afar ilmaadeeruunbaa tiifiyada soo joogsata waxaba inaan loo dhannayn baanu aragnaayoo cid geesii wadato shacabka cabaadayaan taageeraynaa ee reer somalilan ee waddaniinta ee leh saldhigaa ha laga fiirsado nabadgelyadana ha la ilaaliyo ummadda dadkaad xukuntiinna ha la dhegaysto saldhigan somalilan oo dhani ka hadlayso waa saldhig militarina kii somalilan ee daybu waxaan leenahay ha laga daayo saldhigaa somalilan ha laga daayo militari horaa loo eeday ha laga daayo haddii laga dayn waayo wixii kii hore laga dhaxlay unbaa laga dhexli doonaa waxaan leenahay shacabka somalilan baan raacsannahay waxaa shacabku ku hadlaayo ha la raaco wasiirada inta kooban ee wasiirada ahee waxaan ogolaatay ayaanan ha ka noqdaan waxaa baarlamaankuna waxaa ha ka fiirsado oo dalka ha ka daayo